Taakula Production. ummad kasta sideen ognahay waxay leedahay dhaqan iyo caado u gaar ah. Haddaba markii qaar caadooyinkaas ama dhaqamadaas waxay noqdaan kuwo dhibaato ba'an ku haya caafimaadka bulshada. Gudniinka fircooniga ee dumarku wuxuu ka mid yahay dhaqamada ay joogtayso Soomaalida. Haddaba xagee uu ka yimid taariikhdiisuna maxay tahay iyo weliba dadkii ugu horreeyay ee dunida ku soo biiriyay fikirka gudniinka fircooniga. Waxaa la sheegaa in gudniinkan uu bilowday xilligii Faraacintii Masar. kadib markii reer Bani Israa'iil oo xilligaas la gumaysan jiray nin Fircoon uu sheegay boqorka xilliga gumaysan jiray waa Fircoon in uu xilka kala wareegi doono ama talada ka qaadi doono wiil ka dhalan doono dadka ay gumaystaan waa Nabiyullaahi Muuse calayhi salaam. kadib markaas ayuu amar ku bixiyay in la gudo lana tolo dhammaan naagahooda. waxaa shaqadaasi qabanayay ama fulinayay umulusooyin la shaqeynaya boqortooyada si loo kontaroolo guurkooda uurkooda dhalitaankoodaba. kadibna in amar lagu bixiyay in wiil kasta oo dhasha xilligaas la dilo lana gowraco si aysan u suurtogelin in uu yimaado wiilka la sheegay ninkaas in lagu ashay. wadamada isticmaala gudniinka fircooniga waxa ugu horeeya dalka Masar kaasoo ay ahayd meeshii ay markii hore ka soo uungatay fikirka ah gudniinka fircooniga oo looga bartay dalkaasna iyaga tirkoobkii la sameeyay isticmaalayaasha gudniinka fircooniga wuxuu noqday ee ugu dambeeyay boqolkiiba 50. wadanka ku soo xiga استعمال سبل الجنين كفرعوني جاء وودن كالسودان إنكشتو أي استعمال ياشا الجنين كفرعوني لأدب كالسودان وجاري يسمى قلتي بسكتة وحقوسي حلو ودن كاس ودن كالصوماليا ودن كنا وودن ككلية وبفرح بدل استعمال الجنين كفرعوني. sidoo kale wadamada aan isticmaalin waxaa ka mid ah wadamada Islaamka iyo Carabta. بدن بان هردوي حمود يحدون هردوي لا يعود هردوي لا هدلوي هردوي حبينا بدن بان هردوي حمود يحدون هردوي لا يعود هردوي لا هدلوي هردوي عليها الشيطان هردوي هلالي وايو عليها الشيطان هردوي هلالي وايو كل اللمع عوي هنا تدعي كل اللمع عوي هنا تدعي على كل حال نوعية أنصوص شكلي لما نجوا وكلا درن ودبتوي فربضن كلا جيسته حتى بدبتوي كقبل كوي مادي اللي قالوا كذو وحاو قبضتها لبضن معوحين مد اللي قالوا كذو حدا إيو مد مستقبل كذا لسه درسة إلى أنت كده من الصلاة قيبها كوبات ku yimaada xilliga la gudayo in gabadha xanuun badan ay dareento ay isla markaana cararto markii carartana ay dhacdo in
qofkii dumarkay gudaysay in sakiintii haysay ay kaga dhacdo xidid ay jarto kadibna ay saas ku dhig baxdo qof inta sidoo kale waxa dhici karaysa xilliga cararsa gabadhu in la jaro qaybo kamid ah kaadi mareenka sida ibta kaadi mareenka kale iyo rasraha in la jaro sidoo kale waxa dhici karaysa in ay gabadhi kaadi ku dhigto sidoo kale waxay dareemi karaysaa in meeshii nabar samayso caabuq samayso kadibna infection ay qaado sidoo kale waxa dhici karaya in qalabkan loo adeegsanayo ee lagu gudayo gabadha inaysan nadiif ahayn sidaasna uu ugu gudbiyo gabadha yareyd cudurka dilaaga ee loo yaqaan tetanus haddaba dhibaatooyinka kale ee mustaqbalka gabadha la soo wajahayo waxaa kamid ah in caadada ay ku adkaato ku dhibaatooto kuna xanuunsato sidoo kale waxaa dhici karaya in ay fooshu ku cuslaato ay gasho xaalad ah obstructive labor ama folder xilliga folderka hooyada ku dhacana waxay imaataa cudur la yiraahdo isku furankaasna wuxuu sameyn karaa caabuqyo fara badan ama infection badan ay hooyada u gudbin karaan sidoo kale in ay xanuun dareento xilliga galmada sidoo kale xiise la'aan iyo daran la'aan ku wajahan lamaanaheeda maadaama meesha laga saaray dareensidihii hooyada dhibaatadaas markay timaadana waxaa bato furitaanka lamaanaha isqaba maadaama aysan meesha jirin kalsooni iyo israbitaan marka hooyo iyo aabbo waxay idinka codsanayaan cod gaaban iyo cod dheerba aan idinku sheegayna inaad dabar jirtaan dhaqanka noocaasa maadaama dhaqankaasi uu yahay mid saameyn weyn ku leh gabadha mustaqbalkeeda faa'iidada uu leeyahay dareensidaha dumarka waxaan ognahay shay kasta Allah subxaanahu wa ta'ala abuuray inuu xikmad iyo macno weyn ku fadhiyo sidoo kale dhakhaatiirta anatomiga waxay tilmaamaan in dareensidaha inuu la mid yahay xubinta taranka ee rag sidoo kale wuxuu leeyahay nerve iyo xidido waxyaalaha uu qabtana waxaa kamid ah inuu daboolo xubinta taranka ee hooyada haddii la jaro waxaa dhacaya in germs badan iyo bacteria ay gasho una gudubto ilmo-galeenka hooyada sidoo kale inuu ka qayb qaato dareenka jinsiyadeed ee ka dhaxeeya lamaanaha isqaba haddii meesha uu ka baxo oo la waayo waxaa dhici doona in uu bato furiinka marka fadlan hooyo iyo aabbo cod yar iyo cod gaaban ha burburinina qoyska muslimka dhaqanka Soomaalida iyo fikirka ku aadan gudniinka dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay dhaqan aan laga tirin sidoo kale waxay rumaysan yihiin in faa'iido u leeyahay dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha ayuu ku antacoonaya gudniinkan inuu ilaalo u yahay gabar ahaanta hablaha sidoo kale dadka qaarna waxay rumaysan yihiin inuu yahay wax diini oo marna laga talaabsan karin sidoo kale waxaa jira Soomaali badan oo aaminsan in xubinta taranka ama dareensidaha gabadhu inuu yahay wax ceeba wax nijaasa ah cad xun oo ku yaala haddii aan laga jirana ay tahay ceeb gabadha ku tahay sida darteed ay ku jiraan inta badan guntii iyo gunaanadkii fiidiyogan hadduu ku anfacay ama aad waxun ka fahantay fadlan wixii fikir ah iyo sida ugu habboon ee bulshadana loogu wacyigelin karo gudniinka fircooniga ah hoosna u reeb mahadsantiin channelka daawanaysidna waa Taakulo Production Channel fadlan fiidiyogan haddaad aragtay inuu faa'iido u leeyahay bulshada share si faafi asxaabtaada u sii gudbi si aynu u helno bulsho caafimaad qabta wax fahansan cilmi leh aqoon leh wax kala garanaysa dhibaato kasta oo timaadana ka hor istaagaysa shacabkeeda iska horcelinaysa sidoo kale dhalinyarta inay ku baraarugaan in waxan ay yihiin waxyaalo ama dhaqamo xun oo kamid ah dhaqamada bulshadeenu ay sida baan u isticmaalaan ama ay ugu dhaqmaan waxa jirta gobolo fara badan oo kamid ah goboladeena inay dadka degani ay ku dhaqmaan runtiina gabdhaha waa laf dhabarta bulshada gabdhaha hadday dhibaatooto ama xanuunsato bulshada dhan ayaa xanuunsatay ama baaba'day runtii qof kasto aqoon-yahana waa inuu ka taxadaraa dhibaatada laga yaabay inaga dhalinyarteena ahaanteena inaynu beri kamaalin noqon doono hooyooyin aabbayaal ay noqon doono inaynu kula dhaqmin dhaqanka noocaana awlaadeena
haddii aad jeclaysatay ama ka heshay qaabkan aan kugu soo gudbiyay fiidiyogan like iyo share. Jeceshiin inaan inta badan ka soo hadlo hoos igu soo qora.